ما والله واحد همين كان مقليبا ميك اب بدميس ميك اب كلر كذا قبل قروح ميرم ما شاء الله والله واحد أنا مرت بس أصوتها ميك اب كوتش ها هبين والبنوان اللي جيستابتي هاي حتى طبعا في شو حال هبين والب عرور يعشب اللي جيسان هاي خير ها هو كبدش سكوا بدلين أنت وما كرمنا يرون معك وحلا هذا الماجر ما يولا لو أدب وما صد marka heesta iyada laftigeedana make up-ka gabdhaha qaar baa ku dhaafay ها wixii dhanba waxay noqdeen wanaagsan oo maartay dadku wax ka bedelay mo waagay marka anu maartay fanaaniinta waxa la dhigi kara isku dambe ma nihin ilaa anu dadka wax ka yar waa taay ka yar bedelay dadkii waxay leeyihiin bal horta heestii bay wada sugayaan make up-ka waxaan kala baxayaa heestii dabcan hees magaceeda waa make up-ka ruux badan make up ma noor karaa ruux badan واجاك waxaan kala baxayaa mar kale Cabdiraxmaan Garmo iyo make up ruux madow ma noorin kara daawasho wanaagsan naagti aan qabay ha ameerka bay u sirtay
makeup ruux madow ma nuurin karaa dabcan gabdhi niyo waxa u reebatay malahan ragii baa ka horreeyay dariska u tagtaayo hadal aan doonay beega soo qaata haye waa ku wareeg badan marka makeup-kii kaliya kama hadlayso dabcan heestii gabdhihii dabcan kuwa isku bedeleen way jiraan kuwa intay kula soo hadleen ku dhaheen barniyo makeup-ka kama maaranay maxaad heestan u keentay ma jiraan wallaahi waxaan ku yiri Soomaalidu hadda sida hormaha social media aad baa loo isticmaalaa marka waxaa arkaysaa qofkaada dhan adigu aragtaa qof saaxiibkiisa ma kuusoo gudbiyay marka waxaa arkaysaa wax sawir laga soo qaaday lagu soo dirayo mid iska calaacalayso aytamayso inkaar kugu dhacday mid waxaa arkaysaa meelba nooga soo hareeyo marka waxaan ku yiri adigu gabadh maada makeup ku doorateen hadda makeup-ka horta laga maarmo bal xoolashada makeup la waxaan ku yiri caawi yeelin inay ku raacdo soo marsaad leedahay laakiin iska soo badan waaga waxaan soo gaarnay guntiga gabadgoodii barnaamijka